ومنافق وين وعر وهرية oo u yeertay soo xasuuqay dadkii kuwa dhul kala soo qabsaday kuwa dhulkeena nagu haysta dalka Soomaaliya waxa isku soo bahaystay cadawyo kala duwan oo kuwii hadda aan sheegaynaa saddexda ah kuwii gudaha argagixisada ah kuwa kale oo munaafiqiina iyo cadow dibadda ka yimid oo ogtihiin oo shalay u dambeysay Hargeysa ka dagay kuwa dhulkeena nagu haysta kuwa dhul kala soo qabsaday soo xasuuqay dadkii xoog intay ku qabsadeen 70 kun ka soo jeestay oo 19 kun oo kamid ay caruurtahay Falastiin Gaza kuwii xagga soo xasuuqay baa inaga noo yimid hadeertaan oo kuwa naga mida oo munaafiqiinta sheegaynaa oo munaafiqa weyn oo cirro ugu horeeyo oo u yeertay kuwaas ayaa haddana la soo darsay waxaa noo gacmo qabanaya kuwaas oo noo gacmo qabtay cadowgan khawaarijta waxaan rabnaa ciidankan awoodiisu waa cir iyo dhul iyo bad baynu soo xiro cadowgan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa la hadlayaa dhamaantiis meel joogaba iyo dufcada hadda qala jooyreys cadowgan haddaanan ka taqalusin munaafiqiinta nagu jiraahe maalin kasta cadow dibadda ah nagu yeeranaya maalin kasta mid bay gobol noo soo dejinayaan waxaa marka waajibkiinu yahay hadda inaan cadowgan khawaarijta argagixisada inaan ka taqalusin si aan u gudanno waajibkeena qaranka naga sugaya madax banaanida wadajirka midnimada dalkan waxa ilaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibkaas diyaar ma loo yahay ma ka dabayrina dhaarteena dalka cadow gudaha iyo mid dibadda ah ma u diyaarsanaa inaan ka celino ilaahay marqaatiga oo marnabaad ayaan dhaweetana kuwan halkan ku yiri ilaahay marqaatiga